هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. dhalinyarta qaarkood markaad weydiisid waxay ku leeyihiin cunto ma cuni karo inaan qaadano ma ahane ma seexan habeenkii haddaan seexanayo waa inaan xabad qaataa kininka la qaadanayo waa kinin noocan oo kale ah hal xabo oo noocan oo kale ah halkan xabo waa $30 xabadkan bas intan la eg halkan xabaa wuxuu dili karaa uuna dilay dhalinyar badan oo Soomaali dadkeena ka mid ah kuma koobno dhalinyarta bas qaarkood markaad weydiiso odayaal baa ku jira kuleeyihiin dad waaweyn baa naga gatay kuleeyihiin ama naga gada oo dadka gadaya ka mid ah suntan socodsiinaya hadda wax yar ka hadalna waxyaabaha caqliga dooriya ama hadda dhibaato nagu ah waxaa jira saad ogtihiin daroogooyin magaalada ku jira dhalinyar badan ay isticmaalaan rag iyo dumar meelaha qaarkood odayaal iyo hooyooyin isticmaalaan oo waxaa jira ka soo tagay inay qofka caqligiisa dooriyaan bas daroogooyinka awal waxaa la dhihi jiray waa maandooriye caqliga iyo iimaanka qofkay dooran jireen laakiin hadda waxaa socda iyakii qofkii dilaya waxaana uga sii daran intaa daroogada awal waxay ahayd qofka markuu iska badiyo ayay wax u dhimi jirtay qaadka qofka markuu iska badiyo ayaa caqligiisa doorisaa oo caqligiisa dooriya qofka uu sarkhaamaa khamriga sidoo kale xashiishka sidoo kale laakiin baryahan waxaa socda daroogooyin qofka wax yar ku dilaya inuu iska badiyo ma aha halkii nin uu laqo ayaa qofka dilaya intuu raba hala ekaado ha yaraado ha weynaado caqligu raba ha lahaado meeshuu raba ka imaado ma kala yaqaano waxaas magaalada waxaa ku jira daroogooyin laga ganacsado qaali ah laakiin dhalinyarteena ay aad u isticmaalaan sanadkii la soo dhaafay Mareykanka guud ahaan wadanka Mareykanka kininiyada waxaa u dhintay 70,000 oo qof in ka badan 70,000 ugu yaraan 40,000 oo ka mid ah waxaa ku jira daroogada hadda magaalada aadka ugu badan ee loo yaqaan opioidka 40,000 oo qof ka badan waxay u dhinteen daroogadan hadda loo yaqaan opioidka oo caadi ahaan dawo ahaan la isku siiyo qofka qaliin markuu ka soo baxo kale xanuun badan maamada qofka markuu dumarka umulo kale qofka markii xanuun badan uu dareemo lafa xanuun iyo waxyaabo noocaas oo kale ah daroogooyin taas isku siiyo xanuun baabi'i ahaan la isku siiyo mararka qaarkood ayaa waxay sababaan dhimasho gobolkan Minnesota sanadkii la soo dhaafay 413 qof ayaa u dhimatay daroogooyinkaas 413 qof 300 oo ka mid ah waxay ahaayeen daroogadan opioidka saad ogtihiin wiilal badan iyo gabdho ayaa waxay sanad kasta nooga dhintaan daroogooyinkan iyaga oo suuqa ku jira oo lagu sameeyay ma aha kuwa dhaqaatiirta ay soo qoreen bas ma aha kuwaas la fake oo la sameeyo garaasho lagu sameeyo China lagu soo sameeyo Mexico lagu soo sameeyo ayaa waxaa u dhinta gabdho iyo wiilal badan oo maalin kasta qubuuraha agteena aan ku duugnaa sanad kasta waxaa soo socda waqtiyada kulaylka iskuulada fasax ay yihiin banaanada loo soo bixi doono Ramadaan baa soo socda Ramadaankii la soo dhaafay iyo sanadkii la soo dhaafay waqtigan oo kale ilmo badan ayaan duugnay qaarkood da' yar yihiin qaarkoodna dhalinyaro 20 jir ay yihiin oo kulligood u wada dhintay daroogooyinkan halkii nin ee liqaan bas u dhintay haddii gobolka Minnesota 300 oo qof ay u dhimatay guud ahaan way caddaan iyo madow yar iyo weyn 300 oo qof hadday daroogooyinkaas opioidka ay u dhinteen sanadkii la soo dhaafay ummadeenna bulshadeenna tiro yar kuma dhimanin haddii ay 30 ilmo nooga dhinteen 30 bas dhalinyaro sanadkii la soo dhaafay hadday nooga dhinteen dadka qaarkood ee dhahaya numberka waa number yar ka badan baa ku dhimatay
tiradaas waxaan ka nahay boqolkiiba 10 boqolkiiba 10 ku dhawaad 5 milyan ama ka badan oo wadankan ku nool oo boqolkiiba 10 ay nooga dhimatay daroogooyinkaas tiro yar ma aha waayo bulshadeena boqolkiiba 10 kama nihin kuma dhawin bulshada gobolkan aan joogno oo ugu badannahay gobolada Mareykanka ama dibadahaba boqolkiiba 10 kama gaarno bulsho ahaan saasay tahay dadka daroogooyinkaas u dhintay boqolkiiba 10 ka badan oo dhalinyarteena gabdho iyo wiilal isugu jira arintan marka dhibaatadan ay nagu hayso sida loo maleynayo ma aha waxaa kaaga sii daran dhimashada waa meesha ugu dambayso dhimashada waa meesha ugu dambayso oo qofka ka gaadho waxaa kaaga daran inta dhibaato oo inaan ogeyn inta dhalinyaro oo isbitaalada la geeyo inta dhalinyaro oo 911 loo waco ambulance iyo police loo waco oo parkinada yakoo gawaaridooda ku jira yakoo oo meelo banaan jooga shaqooyinkooda jooga inta loogu waco in loo imaado la daweeyo laga tago 18 haduu qofka ka weyn yahay booliska iyo ambulance qofka u imaado ama isbitaal haduu tago in loo sheego ma aha xaq uma leh waalid in la soo waco in badan oo kamida marka waxaa dhacda isbitaallo in la geeyo ay ka soo baxaan oo la sii daayo maalinta dambe ay soo noqdaan sanadkii la soo dhaafay waqtigan oo kale waxaana soo wacay xaafadan Burnsville booliska mid kamida baana soo wacay wuxuu yiri dhibaatadan arintan bulshadina dhibaato gooniyo ku haysaa isbuucii la soo dhaafay wuxuu yiri had isbuucan aan ku jirna bas wuxuu yiri 12 mar ayaana loo soo wacay dhibaatadan oo dhalinyaro Soomaali bas ah waa hal isbuuc gudahood hal isbuuc gudihiis 12 ayaana la soo wuxuu yiri mid kamid ah laba wiil oo dhalinyaro oo 20 jir ah ayaa wuxuu yiri aan guriga u tagnay midna parking ku dhacay oo isagoo parking yaala loogu tagay midna qolkiibu ku jiray guriga ku jiray labada wuxuu yiri midna ma oga meesha soo ku yimid kii parking aan ugu tagnay markuu uu soo kacay soo miirsaday soo miirsaday oo u tageena laakiin markuu soo miirsaday wuxuu yiri meeshan ku imid ma ogi iyo waxa ugu dhacay kii aan guriga ugu tagnay isma oga labadooda mar isku imaadeen iyo mar kala tageen mayna ogeyn laba kamida bas uu yiri laakiin 12 mar hal isbuuc waana xaafadeena bas ma aha Minneapolis iyo xaafad kale ma aha gobolka oo dhan ma aha waa hal isbuuc iyo hal xaafad iyo hal police waxa arinta soo tabinaya 12 mar tusaaleyso marka inta isbitaalada aada waa intaas labadaas isbitaal meena aadin meeshooda lagu daweeyo alaabta dawa sanka loogu buufiyay way ka kaceen tusaaleyso marka inta mar ee magaalada Minneapolis iyo meelaha kale iyo magaaladeena booliska sidaas oo kale ay u soo jawaabaan arrimahaas oo kale ay ula tacaalaan dhalinyaro oo da'daas oo kale ah oo ummadeena kamid ah tusaaleyso inta mar ee isbitaalo loo geeyo isbitaalkan Fairview agteena ah gabar ka shaqeyso nurse waxay tiri emergency room ka shaqeysa waxay tiri dhibaatada noogu badan waxa weeye dhalinyar gaari banaanka la soo istaajinayo markii la soo istaajiyay dhalinyar gaariga laga soo tuurayo yako miirla ridda laga soo qaadayo ama qof meesha marayo oo arko ama anakaan ugu tagno gaarigan uu sii socdo intaas ay ka cararayaan in la ogaado inay isla socdeen ama daroogada lagu qabto haddii ay 30 qof bas nooga dhimatay sanadkii la soo dhaafay waa saa idin sheeg waa boqolkiiba 10 ka badan halkii kiniini waxa la gadaa $30 ugu yaraan meelaha qaarkood waa ka raqisan marka qaar waa ka qaalisan yahay halkii xabo kiniini ah $30 buu qofka siisanaya qofkii arid la qabsado oo waxaan jirkiisa uu la qabsado suu ku joojiyo way adag tahay maalin kastana waa qofkii inuu qaataa suu ku joojiyo way adag tahay maalin kastana qofka wuxuu ku qasban yahay inuu qaato tusaaleysan marka wiil yar oo laga yaabo inuu shaqo yar ka shaqeeyo kharash badan aanu soo galin lacag badan aanu soo galin oo maalin kasta $30 ugu yaraan ku bixinayo keenin uu liqo uu isku dilayo waalidkii uunan ogeyn waayo waxaan ma aha wax qofka uu sarqaamayo oo isagoo dhacay la arkay ma aha wax laga soo urinayo ma aha indhahayo inuu jirkiisa isbedelayo ma aha qofkii wuu socdaa uu shaqaysanaya isagoo shaqada joogu qaadanaya isagoo bulshada joogu qaadanaya Ramadaan baa soo socda ramadaanka dhalinyarta qaarkood waxay ku leeyihiin qofka ma soomi karo isagoo kiniinkan qaadan cunto ma cuni karo waxaa dhacda dhibaatooyinka mararka qaarkood in
ramadaanka dhimashadan oo kale ay badato waxayna ku badane dhakhaatiirtana waa la weydiin karaa qofka hadduu is dhaho soon kiniinkanna qaado isma keenayso jirkiisii oo baahan hadduu is dhaho kanoo kala qaado inuu isla markii ku dhintaa laga yaabaa wayna dhacday arrimahan maxaan samayn karnaa maxaana la gudboon waalidka ay dhibaatadan haysato maxaa la gudboon waalidka aynan una hadda dhibkan haysanin oo Allah subxaanahu wa ta'ala ka ilaaliyay maxaa la gudboon taasaan wax yar ka dhigana khudbad soo socota sanadkii la soo dhaafay hay-adda la dagaalanka daroogooyinka iyo waxyaabaha mandooriyaasha gobolka Minnesota waxay ku qabteen 46,000 oo kiniini oo fake ahaa oo wadooyinka lagu gadaayay in badan oo kamid ah dhalinyarteena laga gadaayay in badan oo kamid ahna dhalinyarteena ay gadayeen 46,000 oo kiniini inta la qabtay bas weeye gacanta lagu dhigay 46,000 1,500 oo kamid ah hal wiil oo Soomaaliya lagu qabtay 1,500 oo xabo oo kamid ah hal wiil oo Soomaaliya lagu qabtay tusaaleysan marka inta kiniini ee wadooyinka ku jirta guryaha qaarkood taala qaarkood ilmaha markaad weydiiso waxaan maxaad u isticmaashaa waad ogtahay inuu ku dilaayo wuxuu ku leeyahay hadda uma isticmaalo for fun iyo inaan ku sarxaamo waxaas uma isticmaalo waan iska joojin karin haddaan iska joojiyo uma dul qaadan karo qofka kiniinada marka hore waxaa loogu talagalay dadka xanuunada saan hore usoo sheegnay xanuunada goonida qaarkood qaba qaarkood xanuunada dhimirka qaba ayaa loogu talagalay xanuunadaas qofka marka loogu talagalay qofka caadiga ah uu qaato hadhow inuu iska joojiyo jirkiisa waa la qabsaday qaarkood waxay ku leeyihiin haddii aan maalin iska joojiyo jirka waxaad dareemaysaa in cirbado laga siibaayo kale ama cirbado lagu mudayo waxaad dareemaysaa jirkii oo dhan in lagu wada yani lafaha lagu riixay lafaha ku garaacmay marka qaarkood qofka wuxuu dareemaa qabow iyo kuleel iyo wuxuusan ogeyn oo iskugu dhex jira dhalinyarta qaarkood markaad weydiisid waxay ku leeyihiin cunto ma cuni karo inaan qaadano ma ahane ma seexan habeenkii haddaan seexanayo waa inaan xabad qaataa kiniinka la qaadanayo waa kiniin noocan oo kale ah hal xabo oo noocan oo kale ah halkan xabo waa $30 xabadkan bas intan la eg عدي يسول كم قبل كرتت فرق يسول كم قبل كرتت هل كان حب فرق يسول ما قبضته $100 ويا حبت كان هل كان حب أياه وحالة جاية بقف كأنه دلون دلا This single pill can kill a human being can kill a young man or woman of any age not just young هل كان حبا وحود دلي كرا ون الدلا ون الدلي dhalinyar badan oo Soomaali dadkeena kamid ah waana $30 raqiis ma aha tusaale marka qofka $100 ku dhawaad bishii ka bixinaya waxay keenaysaa qofka inuu waxado inuu wax bariyo inuu dad kale wax ka bariyo inuu taleefankiisa gato inuu alaabtiisa kala gato taleefanada uu reerka ka xado uu gato dhibaatooyin badan bay keentaa qofka waxay geysaa meelaha ugu hooseeyo ibn aadamnimada dhibaatada marka kuma koobno dhalinyarta bas qaarkood markaad weydiiso odayaal baa ku jiray ku leeyihiin dad waaweyn baa naga gatay ku leeyihiin ama naga gada oo dadka gadaya kamid ah suntan socodsiinaya dad waaweyn oo Soomaali ah rag iyo dumar ah qaarkood waxay ku leeyihiin hooyo ilmaheeda gaariga ugu jira ayaa naga soo doonta oo gata kumana eka waxaan isticmaalaya kiniinada noocan oo kale ah kuma eka ilmaha laabay oo wadooyinka ku jira ma aha ilmaha qaarkood waa ilmo nadiif oo guryahooda jooga waa ilmo iskuuladooda ku fiican jaamacadahooda ku fiican grade fiican ka keena buundooyin fiican haysta waa ilmo quraanka ku fiican ilmo waxaa jira oo naqaano hadda kiniinkan la dhibaataysan iyo waxyaabaha la midka ah oo sanadii la soo dhaafay tartamada quraanka ka qayb gali jiray kaalmo fiican ka keeni jiray kuma eka ilmaha laabo wadooyinka ku jira kuma eka nooc kasta ay leeyihiin haddii ay ku joogaan ilmo ku fiican asleedahay ku fiican yihiin ha ka aman noqon Allah subhanahu wa ta'ala imtixaanadiisa qofna kama aamin noqdo
imtixaanada qof aamin ka ah ma jiro, qof damaanad la siiyey ma jiro. ha ka aamin noqon, ilmahaaga la soco, ogow, iska fiiri. maxaad ka ogaan kartaa? qofka saan sheegna sarkaan kuma arkaysid isagoo dhacdhacaya. waxyaabaha yareere laga dareemi karo waxaa ka mid ah, kumana koobna intan, laakiin waxaa ka mid ah qofka hadduu xoogaa soo isticmaalayay inuu qofkii isbedelo, jirkiisii isbedelo, qofkii ilmihii inuu aad u caatoobo, culays badan uu ka dhaco. waxaa ka mid ah inuu cuntadii ka go'o ama cuntadii ay u furanto. waxaa ka mid ah inuu hurdadii ka tagto. laakiin haddaadan marka hore ilmahaaga caadooyinkiisa aadan aqoon, gabdhaana way ku jiraan, wiilal bis ma aha. caadooyinka ilmahaaga haddaadan aqoonin la soconin, markay wax cunaan iyo markay seexdaan iyo markay caadiga yihiin, haddana ma ogaan kartid. calaamadaha ugu darana laga arki kara waxaa ka mid ah inuu qofkii uu aad u caatoobo, inuu qofka midabkiisa isbedelo, bishimihiisa ay isbedelaan. waalidkii aana intaa ku baraarugi karin dib ha isku fiiriyo. waxyaabaha kale lagu garan karo waxaa ka mid ah hurda la-aanta oo kale saan sheegnay, qofka inuusan seexan karin. waxaa ka mid ah qofka guriga caadiga la joogo oo guriga uu diirimaad yahay inuu dhaho qabuuba ahaya, uu jaakado iyo busto xirto, ama iyadoo qabow lagu jiro uu dhahayo kuleyl ba ahaya, waan dhididayaa, uma biyo iyo baraf raadsado. waa calaamadaha lagu garta ayay ka mid tahay, laakiin calaamadaha oo dhan ma aha. waxaa lagu si fiican ugu soo ogaan kartaa inaad ilmahaaga xiriir fiican la leedahay ood ka warhayso, oo toos ula hadli karto, ay isku ka hadleen karaan, ay wax kuu sheegan karaan. dhibaatooyin badanoona haysta waxaa ka mid ah ilmihii oona waalidkii si fiican ula hadli karin, oona dhihi karin dhibkan ay haysta. haddii uu dhibkan ku haysto, haddaad tahay waalid dhibaatadan ay haysato, ama ilmahaagii uga shakisa dhibaatadan, imtixaanka ku sabir. imtixaanada qofka sibaa loo imtixaamaa, dadka kulli wada imtixaaman yihiin. laqad khalaqna alinsaana fii kabad buu allah subxaana wa tacaala yidhi. qof kasta imtixaan baa haysta. qof baa barwaaqa iyo nimco lagu imtixaameeyey, qof baa wuxuu ku imtixaamayin waxyaaba aadan adiga ogeyn. qofna ha u haysanin inuu kaa fiican yahay, qofna ha u qaadanin inuu ilaah subxana wa tacaala kaaga dhow yahay. qof kaaga dhow oo maanta allah aad u maraysa oo dhahaysa hebelow ii ducee ma jiro, adaa allah subxana wa tacaala ugu dhow. haddii ay dhibaatadan ku haysato, waa fursad uga faa'iidayso inaad allah subxaana wa tacaala ugu dhawaato. ha isweydiinin ilmaha maxaa ka qaldan, waxaad isweydiisaa aniga maxaa iga qaldan. waxaad isweydiisaa maxaan aniga samayn karaa oon allah ugu dhawaan karaa. hadduu allah xoolo ku siiyey oodan weli ka xajinin, weli ka cumraysanin, beydkiisii aadan ku booqanin, dib iskugu noqo. allah subxaana wa tacaala, nabiga sal l slam xadiid wuxuu leeyahay, qofkii, ama xadiidul qudsi inuu ahaa baan jeclahay, qofkii 5 sano, allah subxaana wa tacaala xadiidul qudsi waay, 5 sano qofkii allah subxana wa tacaala caafimaad siiyey, xoolo siiyey, oo aanan soo boqanin beydkayga, xaramka aanan soo boqanin, makaan soo boqan, soo xajin, aanan soo cumraysanin, xoolihiisa barkada laga qaadaa, caafimaadkiisana barkada laga qaadaa. in badan waxaa isweydiinaa, hanti la-aanna ma hayso, lacag la-aanna ma hayso, tabardarinna ma hayso, xaggee dhibaatada naga haysataa? waxbaan isku keennaa, wixii isku imaan maayaan, gadaal buu kasii furtaa, dib ha la iskugu noqdo. ha isdhehin ilmaha maxaa ka qaldan, adiga dib iskugu noqo. imtixaankan adigu kugu socdaa, kuna sabir. hana isdhehin qof kalaa kaa fiican. waxaa laga yaabaa kuwa maanta imtixaanka ku jiro inay beri ka gudbaan, wayna sida u badan tahay, way ka gudbaan. kuwaasaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa ugu fiican. dhalinyar badanoo hadda waxaa jirta dhibaatooyinkan ka soo baxay, oo hadda dhalinyarta ugu fiican ka mid ah, oo hadda gacan qabanaya kuwa u dabamaray. dhalinyar badanoo waxaa jirta kuwa u dabamaray gacan qabanaya. markay iyaka suuqa ku jireen, ee xabsiyada ku jireen, waxaa jira dhalinyar hadda intay usoo dabamartay kuwii markii ay xabsiga ku jireen iyaka fiicnaa, ee hadda u dabamaray, ee hadda leeyihiin uruxa annaka kusoo baanaya jooga. way jiraan. ha isdhiibin marka, ha quusanin. naxariista allah subxaana wa tacaala qofka mu'minka kama quusto. waa iimaan daro iyo daciif iimaanka ku yimid qofka naxariista ka quustaa. naxariista allah subxaana wa tacaala ha ka quusanin. waa fursad hadday dhibaato ku haysato, tanna bis ma aha, dhibaato nooca rabta ahaato, imtixaan noocuu raba ahaado, xanuun adiga ku haystaa, ilmihii xanuun kaloo kaa haystaa, geeri kugu timid, waa fursad uu allah subxaana wa tacaala ku siiyey inaad ugu soo dhawaato. fursadda ka faa'iidayso.
waxyaabaha kale ee la samayn karo waxaa ka mid ah bulshada inaan isku tashanno. suuqa waxaa ku jira dad waxaan ka ganacsada malaayiin dollar ka sameeya, annakiina inaan jiifno dadkii ilmaha ka shaqaysanayn inay waddada ku jiraan ee maalin kasta ku jiraan ilmaha see looga faa'iidaystaa. qaarkood waa lagu baraaweeyaa, waa lagu tijaabiyaa. waa aragteen marar badan waxyaabo badan lagu tijaabiyo dhow. waxaan fiiri bil baan ku siinaynaa bilaasha, subscription bilaashan ku siinaynaa, Amazon Prime isticmaal, bishan waa bilaash, kan waa bilaash. dhalinyarta qaarkood waa lagu tijaabiyaa say u noqdaan ganacsato, say ugu noqdaan rukun. bilaash baa lagu siiyaa maalmaha ugu horeeya, tijaabi baa la dhahaa. maalinta ku xigta iyo ku socota isagaa doonanaya, isaga lacagta isaga la raadsanaya, lacagta uu soo shaqeeyo isaga wax ku gadanaya. ilmaheena badankood way shaqeeyaan, lacagtooda xaggee aadaa? qaarkood waalidiinta waxaa laga yaabaa inay ka shaqo badan yihiin. dib aan isku noqon, isku tashanno. waxaa kale oo dhacda marar badan ilmaha qaarkood in la arkay iyagoo banaanada ku dhaxay, parking lot bay ka dhacdaa, wadooyin bay ka dhacdaa. waxaa laga yaabaa adigoo waalid ah inaad imaato ilmaha dhibaatadan haysato, wayna dhacday. ilmo waxaa laga yaabaa neefta ay ku dhegayso inaad aragto. dawadan xal joogta ah ma aha, dawo joogta ah ma aha wixii xal u noqonaysa, laakiin qof nolosha badbaadin kartaa. qof nafta ee kasii baxayso oona waqtigiisa dhammaanin way badbaadin kartaa. qofka kiniinkan ay noqoto inuu ku dhinto ama uu dhimasho u dhawaado, inta badbaado ayaa ka badan inta u dhimata. inta u dhimateen aragno waxaa ka badan inta badbaado. waxaana lagu badbaadiyaa marka waxa ugu horeysa ay booliisku sameeyaan ama ambulance markay timaado tanoo kale haystaan inta ku jirta, tana sanka looga buufiyaa. qofka hadduu caafimaad qabo uu xanuunka wax kale ahaa ama suuxdin kale ama wax kale dhibaato kale ay haysatay, wax dhibaato u keeni mayso, wax sun iyo wax dhibaato u keeni mayso. qofka haddii uu hawada ka xirnaydna naqaska u soo celinaysa, hawada u furaysaa, oxygenka u furaysaa. waa hal mar waxa la buufin kara bas saana intaa bas ayaa laga yaabaa inuu qofka ku badbaado. laakiin waa qofka xataa haddaadan uga shaksanayn, haddii uu qofkii u barlaato yahay, uu suuxsan yahay, oodan ogeyn dhibka haysta, xabadka xoogaa ka gargaraacaysaa. hadduu ku maqli karo, hadduu kuusoo jawaabi karo, haddaa aragto inuu qofkii neefta ku dhegayso ama uu indhaha caddaynaya ama si kale uusan qofkan u joogin, kan sanka waa ugu buufin kartaa. meelo badan bilaash weeye ayuu ka yahay, meelo badan bilaash baad ugu heli kartaa. dhowr xabaa hadda masaajidka taala. xal joogta ama ah, laakiin haddii adiga dhibka ku haysto ama aad taqaano qof dhibka haysto, xal joogta ama ah, laakiin waa hal iyo laba mar qofka ku badbaadi karo. mar kale dadka badbaada ayaa ka badan dadka u dhinta. haddii aad taqaano qof dhibaatadan ay haysato, xalka gacantaada ku jiraa. waxaa laga yaabaa hal xabo oo kiniini oo kale oo qofka qaato inuu ku dhinto, adiga inaad og tahay. dhalinyarta inta aan duugnay kulli waxay wada leeyihiin saaxiibo ogaa markay dhimanayeen, saaxiibo ogaa inay arrintan ku jiraan. kulligood waxay leeyihiin asxaab ogaa inay kiniinkan isticmaalaan iyo kiniin lamid ah. waa la ogaa, cidna looma sheegin. qof kasta oo ogeyd dhibaatada iyo dembigaas weyla leeyihiin. qofkaas noloshiisa iyo dhibaatadaas ku timidna mas-uul bay ka yihiin. ha ka noqonin qof dambe oo dhinta mas-uul. haddaad tahay qof dhalinyaro oo jamacada ku dhex jira oo hadda fadhiya, ood og tahay qof kiniinkan isticmaala ama daroogooyinkan isticmaala, hadda u sheeg, caawimaad raadso. way adag tahay qofka inuu iska joojiyo, laakiin waxaa ka adag qofka inuu u dhinto. waxaa ka adag qofkii saaxiibka ah inaad weydo, ood qabrigiisa ku dul oydo, ood noloshaada inta ka dhiman aad ka qoomamayso qofkan uu badbaadin kartay baa kaa dhintay. waxaa ka adag hooyo aanan ogeyn ilmaheedu say ku weyday, hooyo aanan waxaan ka warhaynin iyo aabbo aanan waxaan ka warhaynin oo ilmahoodii waxaan ku waayey, oo aanan markii horeba xumaan iyo waxaan ku taageerin. waxaa ka xun noloshaas dhimatay ama qofkaas tegay inaad mas-uul ka noqoto adigoo wax ka qaban karay. ha sugin qofka kini kale inuu qaato uu ku dhinto, ha la sugin. hadda ayay tala gacanta kugu jirta, wax ka qabo. haddii aad tahay qof waxaan kaloo isticmaala, maanta fursad baad haysataa. bisha shacbaan baa lagu jira, ramadaan baa soo socda. ramadaankan soo socda haddaad rabto inaad soonto oo Allah subxaanahu wa tacaala ajir aad ka raadsato, waxaan jooji. inta badbaaday ayaa ka badan inta ku dhimatay. waana laga badbaadaa, waana laga baxaa. ha isdhihin kama bixi kartid, ha isdhihin way kugu adag tahay. wax kasta waxaa ka adag noloshaada ood halaagto.
wax kasta waxaa ka adag saaxiibka iyo qofaad qaraabadiin ood ku fiirsato intaad ka cabsan lahayd ceeb intaas dhihi lahayd qofka maanaa waalidka u sheegi kara maanaa la hadli kara waan ka ceeb baan ka baqayaa waan ku ceeboobayaa muxuu dhihi doonaa ha isdhihin waxaa ka ceeb badan qofkaasoo dhintay inaad aragto ood waxba ka qaban weydo markaas oodan la hadli karin oona kuusoo jawaabi karin haddaad rabto qofkaas inuu sii noolaado maanta wax ka qabo maanta jooji qof professional raadso meelaha wax lagu daweeya aad qofkaad la hadli karta la hadal waalid la hadal waalidiinta hadday jiraan dhalinyaro aad ogtihiin dhibaatooyinkan inay ku jiraan ha sii riixina arrintan kala hadla waxaad ku caawin kartiin ku caawiya ha kala fogaanina ha qasbina intay adiga kaa fogaanayeen inay arrintan sii galaan dhalinyaro badan waxay u isticmaalaan dhibaatooyin haysata inay isku ilowsiiyaan dhibaatooyin ka haysata inay isku ilowsiiyaan waayo qofka markuu kan qaato dhibaatooyinka dhan wuu iloobaya waa waxyaabaha khamriga loo cabo oo qaadka loo cuno ha noqonin haddaad waalid tahay dhibaatooyinka aad ilmaha u gaarsiinayso inay dhimasho u geyso kanoo kale uu liqo inuu adiga dhib aad u geysato isku ilowsiiyo waxaad ku taageeri karto ku taageer ma ahan dhibaato iyo cadaawad adiga ilmaha idin dhexayso waa nolol iyo geeri dhibaatada waxay taagan tahay nolol iyo geeri ma aha cadaawad iyo tartan ilmihiiba igu madax adkaado iyo ma maqlay iyo waxba ma siinayo iyo guriga waan ka buriyey ma aha guri aad ka burisay ha u geysanin inuu kanoo kale qaato uu u dhinto waa hal xabo kiniini ah ma aha qofka inuu iska toban xabo inuu liqa ma aha kan keligiis ayaa qofka dili kara halkan xabo ayaa qofka dili kara sabab ha u noqonin adiga waalid ilmahaaga inuu kanoo kale u dhinto ilmihiina yana adigina sabab ha u noqonin kan inaad liqdo ood u dhimato اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعل الله من الراشدين وأقم الصلاة